Girl, you mine, قلبي قد كنت على every time. Girl, you mine, قلبي قد كنت على every time. تمالكوي أني وانكايلة أورتالدين حق لانكيلة قميص مكديركا. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo. Don't you wish you could help her? Don't you want to comfort her? Your soul longs to reach out to her. But why? It is because she symbolizes you. All of your pain, your sorrow, depression and fear. qisada waxay ku dhacday wiilkii walaashiisa maalmaha ka mid ah wiilkii walaashiisa hooyada aabbuda ay guriga ka tagay waxayna aadeen xaflad ay qabeen asxaabtooda kadibna guriga waxa ku soo haray labadooda habeenkiina way wada cunteen way wada cabeen way iska baashaalayeen koos kaligood ayaa guriga joogay waqtigu way iskuray saacaduna way sii hordaysay waxaa loo sii socday saqdheex habeenimo xoogaa ay waxay wada dheeleen game playstation kadibna cunug yaraa waxaad qabatay hurdo walaashiisa qolkiisa ay u soo waday si ay u seexiso kadib markii qolka keentay waxa ay dareentay shanqar ka socoto guriga qaybta hoose gabadha waa ay shakisay kadibna wiilka ay albaab ku soo xirtay hoos ay soo aaday qolkana wiilka kaligiisa ayay ugu soo tagtay gabadha hoos markii ay aaday kadib waxa ay soo noqotay ayadoo aad u cabsanayso oo cararayso markay cararaysay waxay qarisay walaalkeeda afka qabatay waxayna gelisay armaajada waxayna ku dhahday ma hadli kartid la amar dambe mar soo bixi kartid guriga waxa ku jiro nin tuuga banaankana ma soo bixi kartid armaajada ayay wiilka ku dhaaxirtay wiilkan aad ayuu u baqay kadib daqiiqado kadib waxaa qolka soo galay ninka tuuga ahaa gabadhii ninka tuuga ahana way iska hor imaadeen kadib ninka tuuga wuxuu dhahay gabadha quruxda badan waxaad igu soo wareejisaa shay walba qiimihiisa oo qaad u sareeya oo gurigan yaalo sababtoo aniga waxaan u baahanahay lacag gabadhii waxay ku dhahday guriga ma ka tegaysaa mise booliska ayaan hadda ku wacaya ninka waa uu ku qoslay haddii aad boolis ka gaartay leesan ma wacaysid gabadha waa ay xanaaqday xogaa ninka ayay indhaha u shidatay ninkan wuxuu soo aaday dhankii gabadha si uu ugu qasbo wax walba guriga yaalo inay siiso kadib gabadhi waxay isku dayday inay ninkii la dagaasho balse laakiin ninka waa uu ku xoog badnaa kadib xoogaa yar fiira ayuu ku dhadhifatay ninkii markuu dareemay xanuun yar ayuu wuxuu isku dayay inuu gabadha si xun u qabto gabadha ayuu aad u qabtay gabadhan si xool ayuu u qabtay aad naqaskan ayuu ku xiray kadib gabadhu waxay isku dayday in ay ka baxsato balse laakiin ma aysan ka baxsi karin ninka wuxuu ahaa nin aad u murqaba weyn gabadh inkastoo ay dadaashay waa ay ka baxsibaysay asigana si xool ayuu u hayay ilaa ay gabadha ay ka suuxdo oo naqaska ugu dhego wiilka yaraana caloosha ayaa horaysa sababta walays ayaa hortiisa lagu dilayaa ninkan wuxuu leeyahay haddii aad iga baxsato ee booliska wac aniga ayaa midaas kuu fasaxayo gabadhi si waxay sheeganaysaa awood waxay tahay in ninka ay ka baxsato balse laakiin asiga si xoog ayuu u hayaa wuxuuna leeyahay ii sheeg alaabaha qaaliga meelaha ay kala yaalaan si aan u qaato si uu ninka gabadhu hayay gabadhii waa ay suuxday gabadha walaalkeedna armaajada ayuu ku jiraa waa uu baqayaa wuxuu is leeyahay haddaad banaan ka baxdo adigana ayamuu ninkan ku dilaa kadib gabadha markay dhul ku dhacday ninkan marka wuxuu isku dayay inuu gabadha faro xumeeyo balse laakiin si lama filaana waxaa albaabku soo garaacay booliska ninkana sidaas daraaddeed ayuu ku cararay markii uu cararay ninkii gabadha ayaa soo kacday indhaha ay soo kala furtay walaalkeed ayaa armaajada ka soo baxay walaalkeed gabadha ayuu soo fariisiyey waxay soo wada aadeen banaanka qaybta hoose kadib waxay arkeen booliska waxayna dhaheen yaa idin soo wacay anaga maydin soo wicine kadib waxay dhaheen maamo ayaa waxay ka aragtay daaqadda gurigeeda kadibna ayada ayaa noo sheegtay in guriga tuuga ku jiro oon isku dayay inuu sharaftaada ku ciyaaro sidaas daraaddeed ayaan guriga ku imaanay kadib guriga waxaa imaaday hooyadii aabbaha waxaana sheegay ninka hadda inuu xiran yahay oo uu ku jiro xabsiga
maalinkaas wixii ka dambeysay gabadhi waxay la tashatay nin tutora ah haddana waxay bilowday ciyaarta loo yaqaano kung fu si aysan nin dambe uga cabsanin. Don't you wish you could help her? Don't you want to comfort her? Your soul longs to reach out to her. But why? It is because she symbolizes you. All of your pain, your sorrow, depression and fear. Girl, you mine. قلبي قد كنت على every time. Girl, you mine. قلبي قد كنت على every time. تمالك وين؟ أنا وان كايل. أورتالا بيل. حتى لانكيل. قميص مكديك. haddii aad channelka ku cusub tahay nagu soo biiro subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kugu soo gaaraan muuqaal walba soo geliyo.